Assalaamu calaykum daawadayaal halkan waa gunta wararka maanta waxaynu si qoto dheer uga hadli doonaa dagaalka ka socda Soomaalida iyo Canfarta oo sii xoogeystay iyadoo Canfarta ay waxdeen gurmad halka Soomaaliduna ay liyo booliska gurmad adag ka heleen sidoo kalena waxaan barnaamijkan ku daawan doontaan Canfarta waxaa taageeraya dowladda federaalka Itoobiya Abiy Ahmed oo hogaaminayo halka Soomaaliduna hadda ay doonayso inay taageero la sameyso Tigray warbixin guud ayaan muuqaalkan kaga hadli doonaa daawada soo dhawaada markana qaybta ugu horeysa waxaa lagu soo waramayaa in dagaal dib uu kaga bilowday agagaarka magaalada Garbaciis iyo aaga tuulada Gowracan ee gobolka City ee dowlad deegaanka Soomaalida dagaalka u dhaxeeya Soomaalida iyo Canfarta ayaa maalmihii la soo dhaafay ka socday halkaas inkastoo shalay qaybo badan oo kamid ah Garbaciis lagu dagaalamay haddana waxay wararku sheegayaan in maanta mar kale lagu dagaalamay aaga ku dhow tuulada Gowracan ee gobolka City wararka la helay waxay sheegayaan in dagaalka aroortiisa ka bilowday ay ku geeriyoodeen in ka badan 5 ruux tiro kalena ay ku dhaawacmeen kuwaas oo ka kala tirsan labada dhinac ee dagaalamay guud ahaan dadka deegaanka ee tuulooyinkaas ayaa ka barakacay waxaana la sheegayaa in qoysaska barakacay ay kala aadeen cirifyada dalka Itoobiya dowlad deegaanka Soomaalida ayaa bilihii la soo dhaafay ku eedeysay ciidamada Canfarta in dadarayda ay ku laayeen Garbaciis kadib markii ay weerareen dad xoolo dhaqato oo deegaanadooda ku sugnaa maamulka dowlad deegaanka Soomaalida waxa uu sheegay inuu difaaci doono shacabka degan Garbaciis iyo deegaanada ku hareeraysan kuwaas oo weerar ay ku soo qaadeen maleeshiyaadka Canfarta maamulka degmada Feerfeer ee gobolka Hiiraan waxay dhankooda sheegeen inay soo dhaweeyeen isla markaana dib u dejin ay u sameeyeen qoysas ka soo barakacay dagaalkaas iyo sidoo kale qoysas kale oo ka soo barakacay dhibaato u geysteen ciidamada liyo boolis deegaanada degmooyin kamid ah gobolka Shabeelle ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale gobolada City qoysaskan waxay sheegeen qaarkood inay u dulqaadan waayeen beegsiga salka ku ayaana qabiil oo Canfarta ay u geysanayaan sidoo kale waxay sheegeen dhanka kale ee ciidanka liyo boolis ee dowlad deegaanka Soomaalida ay kala kulmayeen dhibaatada ugu daran taas oo keentay inay ka soo barakacaan deegaanadooda qoysaskan ka soo barakacay deegaanada ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxay wajahayaan xaalado dhanka nolosha waxaana ay sheegeen in dhibaatooyinkii soo gaaray aysan iloobin deegaano ka tirsan maamulka dowlad deegaanka Soomaalida waxaa ka jira dagaal salka ku haya colaad beeleedyo kuwaas oo dad badan ay ku dhinteen waxaana ku dhaawacmay boqolaal qoys oo halkaasi ka barakacay wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegay in xaaladdu ay hadda u muuqato mid sii horeysa maadaama Garbaciis oo Afriis muhiim ah labada dhinac ay ku kala dagaalamayaan madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya Mustafa Maxamed Cabjar ayaa waxa uu baahinta u sheegay in ciidamo dheeraad ah u diri doono Garbaciis si loo caawiyo maleeshiyaadka Soomaalida ee la dagaalamaya maleeshiyaadka Canfarta waxaa la tilmaamayaa in Canfarta taageero ay ka helayaan dowladda federaalka Itoobiya iyo sidoo kale ciidanka Amxaarada taas oo keenaysa in markan Mustafa Cabjar uu ciidamo dheeraad ah u diro kuwaas oo liyo boolis qayb ay ka yihiin ciidanka liyo booliska sida gaarka u tababaranaya la tilmaamayaa in dagaalka ay qayb ka noqon doonaan taas oo wiiqi karta awoodda ay ku dagaalamayaan ciidamada kala duwan ee federaalka Itoobiya ay caawinayaan ee Canfarta waxay doonaysaa inay guud ahaan gacanta ku dhigto tuulooyin ay ku dhigto Gowracan iyo sidoo kale Garbaciis ee gobolka City waxaana tuulooyinkaas hore ugu saxiixay madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida Cabdiile kaas oo markii dambe uu ka biyo diiday Mustafa Cabjar in tuulooyinkaas la siiyo dadka Canfarta waxay taageero buuxda u tahay Abiy Ahmed taas oo mid kale awood dheeraad ah siinaysa waana mid kale hadda ay adeegsanayaan si loo wiiqo awoodda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya dowladda federaalka ayaa kala hore sheegtay in iyadu ay caawin doonto cid kasta oo laga gardardaran yahay waxaana ay sheegtay in Gowracan iyo Garbaciis ay tahay dhul ay leeyihiin Canfarta sida daraadeed Soomaalida si sharci darro ay ugu dagaalamayaan taas waa sababta weyn ee xilligan dagaalku uu sii xoogeystay walow weli aysan dowladda federaalka war rasmi ah ka soo saarin haddana dhawaan waxay ku baaqday in xabad joojin la sameeyo taasi maahan waxay ku qanceen shacabka Soomaalida iyo sidoo kale dadka kale ee dagaalamaya dhanka kale Tigray ayaa waxay doonayaan inay dhulka mariyaan guud ahaan Amxaarada iyo Canfarta iyo sidoo kale Oromada kuwaas oo taageero siinaya Abiy Ahmed inkastoo qayb ka mid ah Oromada ay taageero siinayaan Tigray haddana waxaa muuqata in Tigray ay doonayaan ilaa Addis Ababa aysan dagaalka joojin haddana waxaa ka soo baxaya warar waaweyn ciidamada Tigray qaarkood waxay doonayaan inay caawiyaan Soomaalida si halkaas weji ay ugu samaystaan Soomaalida ugu dambeyn ay noqdaan kuwa garba siman Soomaalida la dagaalamaysa Canfarta halkaasna loogu adkaado Canfarta Tigray waxay doonayaan in Soomaalida ay xoojiyaan dagaalka ay kula jiraan Canfarta ugu dambeyn Canfarta sidaas loogu guuleysto halka Tigray si xoojinayso dagaalka ay ku wado dadka kale ee Amxaarada iyo sidoo kale qaybaha kale ee Canfarta gobolada kale maadaama gobolka City ee Soomaalida la dagaal lagula dagaalayo
ciidamada fallaagada ee dagaalka ka wada gobolka ee colaadda ku dhufatay Tigray waqooyiga dalka Itoobiya waxay midowga Afrika ku eedeeyeen inuu dhinac u janjeero maalmo kadib markii midowgu dhexdhexaadiyay oo magacaabay madaxweynihii hore ee Nigeria Olusegun Obasanjo. Afhayeenka kooxda TPLF ayaa sheegay inuusan ka soo horjeedin magacaabidda Mr. Obasanjo balse aaminsan yihiin inaysan waxba ka soo bixi doonin howlaha dhexdhexaadnimada. Afhayeenka kooxda Getachew Redo ayaa midowga Afrika ku eedeeyay inay la safteen dowladda federaalka si daraaddeed aysan jirin waddo ay colaadda ku kala qaadaan. Xoogga fallaagada TPLF waxa ay eedeyntooda ku sheegeen markii ay soo baxday arrintan. waqooyiga Itoobiya waxaa hareeyay rabshado tan iyo bishii November sanadkii hore markii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu ciidamo u diray gobolka Tigray si ay u afgambiyaan TPLF oo ah xisbiga talada gobolkaas haya. Getachew Redo waxa uu sheegay in xaqiiqdaro tahay in la filayo in howlgalka loo soo magacaabay madaxweynihii hore ee Nigeria Olusegun Obasanjo uu shaqeeyo. Abiy Ahmed ayaa sheegay in talaabada uu ciidamada ugu diray gobolkaas ay jawaab u yahay weerarada lagu qaaday xarumaha ay ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen gobolka Tigray. guuleystaha horumarinta Nobel Prize 2019 wuxuu ballan qaaday guul degdeg ah inuu arrintaas ka gaarayo laakiin dagaalka uu sii jiitmay muddooyin bilaa taas oo dhalisay dhibaato bini'aadanimo oo ka dhacay gobolka Tigray halka fallaagadu ay qabsadeen qaybo ka mid ah gobollada dariska la ah ee Canfarta iyo Amxaarada. Abiy Ahmed ayaa hor u diiday inuu wadahadal la yeesho hogaamiyaasha Tigray isagoo ku adkaystay in meesha uu ka saari doono madaxda TPLF. khamiistii ururka midowga Afrika wuxuu ku dhawaaqay in Obasanjo noqdo wakiilka sare ee Geeska Afrika isagoo sheegay inay qayb ka tahay dadaalada lagu horumarinayo nabadda, amniga, xasiloonida iyo wadahadallada siyaasadeed. laakiin afhayeenka TPLF Getachew Redo waxa isku fogeeyay qorshahan isagoo yiri aad bay noogu adag tahay inaan ogaano sida dadku si macquul ah ugu filayaan laakiin waxa dhisaya hay'ad ay musuqmaasuq u bixiya magac aad u xunna wadata. xalinta xiisaddan ogaan waxay u baahan tahay in la qiro jiritaanka iska daayay baaxadda ay leedahay dhibaatada ayuu ku qoray Twitterka. afhayeenka TPLF Getachew Redo dowladda ama dagaalka Itoobiya ayaa wuxuu cadeeyay inuu yahay mowduuc xasaasi ah midowga Afrika oo xalintiisu ay tahay caasimadda Itoobiya Addis Ababa. Tigray waxay ballan qaadeen inaysan dagaalka joojin doonin ilaa gacanta ay ku dhigaan caasimadda Addis Ababa sidoo kalena ay saaraan guud ahaan dadka taageersan ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo filigiisu yahay Addis Ababa ayaa wuxuu hadda shacabku ugu baaqay inay difaacdaan dalkooda isagoo sheegay in Tigray ay doonayso inay guud ahaan Itoobiya burburiso. dad badan oo dhalinyaro u badan ayaana arrintaas ajiiba waxaana dib ay la safteen dowladda federaalka Itoobiya balse ciidamada Tigray ayaa arrintaas waxay dhalinyaradu ugu baaqeen inaysan la safan dowladda oo ay ogaadaan in haddii mar ay dagaal xoog leh soo qaadaan ay cagta marin doonaan cid kasta oo ka hor timaada. taasi waa cabsida qaar ka mid ah dhalinyaradii hadda ciidanka isku qoray gashay waxaana jirta in ciidamo badan oo ka mid ah dowladda federaalka Itoobiya lagu soo bandhigay gobolka Tigray kuwaas oo sheegay in guud ahaan dowladda ay ka baxeen. hagaag daawada muuqaalkeeni waa naga intaas maanta nabadgelyo.